توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقن. qabiiladan oo Hindi ah kana yaabsatay dad badan ayaa waxa ay ku nool yihiin tuulada Falanaas. Cuntada ugu fiican ee ay cunaan waa hilibka dadka. Igori waa magaca qabiilada, waxa ayna guryahooda ka dhisaan aagga meydka lagu gubo iyagoo aaminsan in ay ruuxdooda ku ifayso. Muuqaalka wejigooda markaad eegto cabsi badan ayaad ka dareemaysaa. Dambaska xaabada meydkooda lagu gubo ayaa ay ku daboolaan jidhkooda oo idil. Arrinta mucjisada leh ayaa waxa ay tahay in qabiiladan laga helo kaliya xabaalaha, halkaasi oo ay cibaadadooda ka dhigtaan cunidda hilibka dadka iyo cabista dhuuxooda. Sidoo kale waxay cunaan madaxyada xayawaanka nool. Sida u suurta gashay sawir-qaade Talyaani ah oo la yiraahdo Christian Astronelli, masawir uu soo gudbiyay ayaa waxa uu muujinayaa sida ay qabiiladani ugu dhaqanto waxay aaminsan yihiin si sir ah oo buuxda. Astronelli waqti badan ayuu la qaatay, waxa uuna ujeedkiisu ahaa in uu noloshooda wax badan ka ogaado. Qabiiladan ayaa waxay u tibaaxday inay awood u leeyihiin inay xog ka helaan mustaqbalka, arrintooduna ay ku salaysan tahay shar. Inkasta oo uu sameeyay isku day si uu daaha uga qaado sirta ku duugan qabiilada Igori, haddana weli sawir-qaade Astronelli weli waxa uu u arkaa in weli sirta ay ku xeeran tahay qabiiladan, taasi oo ay Indiyaanka laftirkooda cabsi fara badan ay ka qabaan. Oday diimeedyada qabiilada Igori waxa ay isticmaalaan maandooriyaha marijuana iyo khamri si ay u gaadhaan xaalad miyir-beel ah, isuna dhiibaan midowga ilaahyada. Hinduuska ayaa aaminsan yihiin Shiva. Badanaaba Hindiya gudaheeda meydka waa la gubaa, iskiisana waxa lagu daraa webiga muqadaska ah ee Ganga, laakiin mararka qaar meydka waxa sidiisa loogu tuuraa webiga. Qabiiladanina waxay soo urursadaan meydka si ay uga faa'iidaystaan uguna bilaan ruuxdooda. Marka loo eego waxay aaminsan yihiin, Igori waxay gebi ahaanba ka fogaadeen hantida iyo dhaqaalaha maadiga ah, xataa waxa ay socdaan iyaga oo qaawan, waxaana asal ahaan loo tiriyaa inay kasoo jeedaan Bob Kinaram oo lagu tilmaamay in uu noolaa 170 sano.